kadib markii guddigii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu xil saaray xal u helidda sixir bararka iyo qiimo dhaca shilinka Soomaaliland ay sheegeen shalay toole in go'aal xal lagu heli karo arintaasi laga gaaray ayaa waxa warbaahinta magaalada Hargeysa maanta kula hadlay xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka UCID Axmed Xirsi Ducaale waxaanu sheegay in xukuumadda Soomaaliland u marin xal u helidda sicir bararka iyo qiimo dhaca shilinka Soomaaliland habkii ugu haboonaa tijaarta dalku dadka wax iibsanaya ama wax soo laga iibsado ama iyagu wax iibsado ee ganacsatada ah waxay wax ku iibsadaan dollar arinta madaxweynaha iyo dawladdiisu ma soo qaadin gudiduna ma soo qaadin wax kasta maanta aad dukaamada iyo dhulka wax laga iibsado aad tagto wax lagu iibsadaa waa dollar arinta waxaan leenahay dawladuna waxa ka qabato ganacsatada reer Soomaaliland dib ha ugu noqdaan oo ha eegaan arinta kale ee aan isleenahay uu ka tagay way u baahnayd in la ishaaro wax weeye sarifka dollarka ee Ethiopia ay ku qaadato lacagta qaadka oo aan muddo badnayn hadda ka hor la inagu soo rogay inay sarif dollar aynu ku bixino lacagta taasoo ilaa 10 baan ay Ethiopia uga furatay wajaale dhinaciisa Ethiopia ay maamusho baanankaasna meesha loo keenay dollarka Soomaaliland ka imanaya in lagu shubo Professor Cabdinaasir Ibrahim Saacad oo isaguna la hadlay TV-ga Universal ayaa sheegay in aanay waxba iska bedeli karin hoos u dhaca shilinka Soomaaliland ilaa inta ay gacanta banka dhexe Soomaaliland ay soo galayso lacagta ay isticmaalaan imika adeegyada saad iyo dahab maanta saadkan iyo waxa la sameeyay aanu ka warramaynaa waa qaab lacag loo sameeyay وقاب العقل وصم إما كسر عادي أنت يوم وقتها وحوي $100 بعد وجيسة تلسوم وكلا ما وجيسة سات عندنا دار السلام بقول خد دور باتر هذا يقول شو بقول خد دور واحد يجا بين كذا حساد إذا عد كلو رجولات جريسة ما شرتي يقوم بعد وجيسة بقول خد وكوش شو إن $1,000,000 كوش بعد محاول جديد they can do it واد ضمير كودي بين وقتنا أوفسايد كده دولة دامك واحد دولة دويني وقعت العقد لسمانية توب أب كان بيشترك العقد جدود كانوا كورها منا تينو ريسك بيتات كل عقد سمين تويا كان أنت مثلا وأنا هالك مشكلة دوكشرت لابد فهم العقد كان ديجيتال كهي كان نوت كا إمك واحد لابد بدين أوفسايد وشرت دولة ده حوضات كان حايسة ونيجو كان عصتها هين في أي راتين يسود واحد أنت كشرت سوق جلي سيء رجوليت جرينس ما أنت واحد عيو حوي دولار كا واحد سمين شري وأنا عندنا ده رجوليت جرين شرنا أوفسايتان وشرن تلسوم يو دهب شيل يبقى لابد كومباني بقى جوا وين هاي نشوف عليه دهب شيل inflation كان شري لفتة إلى حد ما وجين إن العقد فرق بدنا $1 سوق سوق شيء يجوا سمين وغيبهان كي هاي مسؤول كي هاي يدو مشكلة ده سيرتي إما كدولة دي وحي وقلاته إن تي Soomaaliland سمايا qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa oo iyaguna dhankooda la hadlay TV-ga Universal ayaa aragtiyo kala duwan dhiibtay wuxuu saadkii imka Soomaaliland hal kordhiyo lacagtii dhulka taalay cadaanka ahayd ma shaqeynaysan waxa la saadka Soomaaliland hal xidhka kan $100 oo yiraahdo lacagtu si ay u wareegto lacagta Soomaaliland dhulka taala si ay u wareegto ka Soomaaliland hal xidho ka kan $100 oo yiraahdo lacagtaas ku shaqeynaysa laakiin hadii kale arinku waa iska fashilay waa sidoo hore hal qodob laga reebo go'aanada kale oo dhan waa kuwii loo baahnaa laakiin hal qodob oo waraba baa ku jira oo inta kale aan isleeyayba waa burinaya halka qodob waxa weeyaan in la yiraahdo shilin Soomaaliland maxaa ku dhaayeen saada ayaa firiya qof liba intuu doonaa shilinka ha shaqeyn maayo hadii hadana waa mid lagu bedelay laakiin kaliya ma aha in dollarka waxa laga qabtaa weyn maciishada wax laga qabtaa waayo lacagta shilinka Soomaaliland waxa wax ku yeelanaysaa waayo jaamacadihii baa lagu qaadayaa dollar iskuulkii baa dollar lagu qaadaya gurigii baa lagu kiraynayaa baskii baa lagu raacaya gurigii bay ku kiraynayaan marka waxa loo baahan yahay jaamacadda dawladda ayaa dollar qaadanaysa waa in Soomaaliland shilin jaacad naga qaadataa guriga Soomaaliland shilin lagu kirayaa maciishada wax laga qabtaa hadii la dhaho sarif wax laga qabanayaan maciishada halkii joogto waxba isbedel lama helayo waayo iskuulkii baa ardayda laga qaad malcaamadii wax laga qaadanayaa dollar Mukhtar Ismaaciil Ali TV-ga Universal Hargeysa